mataqaanaa fiiri aniga waxba kala iibsanayo dad fiidiyo rabtin laga iyo waa helaysaa group ayaa jira meesha laakiin waxaan ku sheegay ariga numberkaaga maanta na soo gaaray ila list baa jira maanta listiga ayuu ku jiray numberkaaga kamid ahaa waxaana maqlay in ragga qaar ay iibsadaan fiidiyoda ku jirtid laakiin dadka aan barnaamijkan u sheegtid mas'uul fahmaysaa sidee bay horta qorsheygu ku bilowday inaan kuu sheego in arrintan ay jirto suuqana uu jiro mid qiimo sare leh iyo mid qiimo jaban marka maqalka idiin soo gaaraya waa mid ka mid ah manaxayaasha hablaha Soomaaliyeed sharafkooda ka ganacsada waa shabakad isku xiran maafiya ah kana sameeya lacag magac iyo milgadilida ummadda Soomaaliyeed iyagoo waxba aan xeerinayn dhaqan diin iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed waxay u bareereen waqti iyo lacag iyo qiimo walba ay ku qaadato si ay inay helaan muuqaal xun oo gabar Soomaaliyeed oo miskiin ah ay ka duubeen dabadeedna ay ka sameeyaan lacag markala ila dhageysta ninkaasi waxa uu ku hadlaayo dabadeedna aan isla qiimeeyno arrin kale haday garoob tahay oo ma arkin oo hal cunug ama laba cunug dhashay oo ma arkin jirkeeda waxaa dhici karta qiimo jaban in laga sii baraado ilaa 150 ilaa 250 laakiin haddii gabadha bigrata qaar bigraa jiro yar yar oo iskuulla dhigto jaamacado dhigto oo ilaa 600 ilaa 500 la siiyo qaarka marka telefoonadooda qoraan iyo meesha ay joogaan xataa hoteelo qaar ka mid ah Muqdisho ku yaal ayaa jiro oo direct ugu xiran qaarkood xataa hadduu qofka Muqdisho joogo dalabkiisa dalbado Muqdisho hotel loogu geynayo sida aad idinkuba maqlaysaan waxa uu sheegayaa manaxahaasi in hoteelada qaar ee magaalada Muqdisho ku yaalo ay xarumo ku leeyihiin hablaha yaryar ee maskaxda iyo maanka laga soo xaday amaba ay siiyaan maandooriya ay geynayaan hoteeladaas si ay jirkooda uga ganacsadaan ugana duubaan muuqaalo xunxun oo ay ka sameeyaan lacag lagu siiyo barnaamijkaas waxaa kala socotaaday mise adi dhankaaga leh unbaa sida doontida u sheegtaa mar kale isaga oo cadeynayo xarumo inay ku leeyihiin meelo dalka ka baxsan sida magaalada London ee cariga Ingiriiska hadda waa jira London oo ka furay sawirada aan kuu soo diray marka hadda more information rabtid oo ku siin kara naaga lama qasbaayo naaga waliba waxa ku jiro ayagoo xaas raggoodii guriga joogo ilmaha u qubaynayo ka qaylinayo gadaal backgroundka ayaan isfareenayso video soo duubayso mid ahaa hadda daarto ku soo diri karaa ninkeedana ilmaheeda uu qubaynayo oo qabo xaaskiisa ay tahay video la soo duubayso marka suuq jiro waayo oo lacag lagu kala qaato ilaa gabdhihi nolol bay u baahan dawladna dalka ma lahan marka groupyo ayuu ka samaysan yahay gabdhaha inay video soo duubo xataa qaarkood waxaa jiro ayagoo caruurtii agjifo oo cunugi soo toosaayo qaar aadaan ka agyeerayo marka arrinta noocaas lama dhihi karo oo ogahay gabdhaha inaad ilaalinayso sharafkooda laakiin gabadha ugu talagashay walaal ma aha video la qasbayo hal video ayaan arkay oo gabar la qasbayo taa waan garan karaa qasabka laakiin inta badi videoyada waxay qusayaan gabdho iyo rag ku heshiiyey inay lacag kala qaataan mas'uul aniga kaama gadaayo laakiin waxaa la rabaa mataqaanaa fiiri aniga waxba kala iibsanayo dad videoyo rabtin in laga iyo waa helaysaa group ayaa jira meesha laakiin waxaan ku sheegay ninkan u hadlaya shabakadan faaxishada faafisa iyo xumaanta waxa uu sheegay in hablaha yaryar qaarkood oo jaamacadaha iskuulaadka dhigto in ay hoteelada tagaan si ay muuqaaladaas u iibiyaan uguna bedeshaan lacag sidoo kale waxa uu sheegayaa in naaga waaweyn ee la qabo caruurtoodii odagooda ayagoo ku dhex jira ay muuqaalada sameynayaan laakiin caqliga saliimka wuxuu sheegaa inaanu taas damiirka iyo dadnimadu aqbalayn oo ay siiyaan hablaha wax ay ku maandooriyaan ay dabadeedna ay ka duubaan muuqaalada ama khasab ay uga duubaan sida uu isaguba qiray hal muuqaal uu arkay in gabar la khasbay ay jirto inta qarsoon oo aan soo shaac bixin ayaa ka badan bal ila dhageysta listigoodi waxaa ku jira siyaasiyiin iyo ganacsata muuqaalkaas macmiil u ah inay iibsadaan listigeena ma listigan dad baa diyaariyo listi aniga leh maaha laakiin groupka maadaama rag badan ku jiraan oo dad ganacsata xildhibaano qaarkood meesha yimaado oo markaasi xaaladda ama videoga cusub ee maalinta soo geliyay u soo doonta ayaa jiro kolay ma aqaan inaad maqashay in videoyada gabdhaha baryaan waa batay adiga weliba isweydiisa xaguu ka imaana waxyaabahan inti ma raadisay ma u korgashay mise intii ku soo gaarto unbaa ka hadashaa
mar kale waa kan isaga oo sharaxaya in gabdhaha muuqaalada looga duubo ogolaanshahooda ayna ay raalli ka yihiin in muuqaaladaas laga duubo uuna haayo muuqaalo aad u fara badan uuna la sheergarayn karo qofkii u baahan caddayn. wuxuu sidoo kale sheegay inay leeyihiin guruubyo ay ku sheergareeyaan si aan loo raadraacin oo haddii la qabtana ay maxaa la yidhaahdaa qaar u baaqdaan. sidaa daraaddeed waxa uu caddaynayaa in kooxuhu ay yihiin koox aad u badan ayna leeyihiin meelo badan oo ay wax iskugu diraan ay ku xidhiidhaan. shabakaddan oo xarumaheedu aad u badan yihiin ayaa waxaa sidoo kale la shaqaysta hoteelada magaalada muqdisho qaybo ka mid ah iyo guud ahaan waddanka qaybo ka mid ah hoteelada ku yaala. laakiin walaal waxaa jirta gabdho badan fiidiyooyo badan oo hadda haddaa aragtidna aan kula sheergarayn karo waxtaarta gruubka kuu soo geli kara ayaa jiro. gabdhahaasiti badidooda brother waa gabdho ugu talagalay in ay ayaga qaarkoodna wejiga qarsadaan ku xirtaan cimaamado jalbaabo wejiga ku xirtaan xubintooda taranka inaasoodana banaanka soo dhigaan qaarkood carruurta ka aqayla iyo qaar wejigooda uu banaanka yaalo. mar la weydiiyey inuu kooxdan isagu ka tirsan yahay iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay no kuma jiro, laakiin marmar waa iska rabaa inaan videoga arko xaaladdu siday u socoto because barnaamijyaan wadi jira ayaa jiro si aan u ogaado xaaladan oo muddo ayaan ku dhex jira inaan ogaado qaabka. laakiin anaa ayaga waxaan kula jiraa inaan ka mid ahay inaan ayaga u shaqaynayo si aan moor macluumaad aan laga helo. mifaanta hadalkayga. laakiin hadalladiisa isdhaadhaafaya markii aan qiimayn ku samaynay ayaa waxaa inoo caddaatay inuu kooxda ka mid yahayna midka u iibgeeya muuqaalada xunxun. haddaba ku leeyahay waa runta waa sax gruubkooda oo ku jira laakiin waxaa nagu jiraa double agent macnaha inaan ayagina aan u jilaayo inaan la socdo sababto haddii aan iska hor imaadno waa caddacaayo waxyaabo badan oo wax laga qaban lahaa dadka arrintaa qusayso ay wax ka qaban lahayn inaysan ogaanin. marka anoo taa ka baqaayo baan ayagana waxaan raba inaan la socdo qaarka wax iibsanayana meesha lacag baa isdhaafaysa brother ma ahan wax oo hadda sheekadan oo social media waa seeka serious nimo waaweyn oo xaasas leh ayaa iibsanaya oo lacagna bixinaya oo caddeyn waa kan mar kale isaga oo noo sharaxaya sida ay u iibiyaan muuqaalada cidda ay ka iibiyaan oo macmiil u ah halka ay ku iibiyaan iyo weliba qiimaha ay kala siiyaan muuqaalada iyagoo u kala sameeyey khaanado iyo qiimo kala duwan. hadday garoob tahay oo maarkiino ama hal cunug ama laba cunug dhashay oo maarkiino jirkeeda waxaa dhici karta qiimo jaban in laga sii brother ilaa 150 ilaa 250. laakiin hadday gabadha bigra tahay qaar bigraa jiro yaryar oo iskuulla dhigto jaamacado dhigto oo ilaa 600 ilaa 500 la siiyo. qaarkaa marka taleefanadooday qoraan iyo meesha ay joogaan xataa hoteelo qaar ka mid oo muqdisho ku yaal ayaa jiro oo direct ugu xiran qaarkood xataa hadduu qofka muqdisho joogo dalabkiisa dalbado muqdisho hotel loogu geynayo. ugu dambayn waxa uu qiray inuu yahay dulaalka u dhaxeeya hablaha yaryar ee reerkoodu waxbarashada u soo direen iyo ragga ganacsatada ah ee raba inay hablahaasi jirkooda ka iibsadaan ayagaana waxay ka suubiyaan muuqaalkaasoo mar labaad ay sii iibgeeyaan. sidaa daraaddeed iyagu marna waxay lacagta ka qaadanayaan ragga ganacsatada oo hablaha yaryar ay u geeyeen marna waxay iibsanayaan muuqaalkii gabadhii yareed laga duubay muuqaalkaasoo dib loo daawadsiin doono gabadhaasi loona xaqiijin doono in laga hayo muuqaal laga sameeyey taasoo ay ku noqon doonto rikaato weligeed lagu haysto aanay diidi doonin warka ay yidhaahdaan iyagu. sidaasi waxay ku khasbanaan doontaa gabadhaasi inay u noqoto macmiil joogto ah ayna ka ganacsadaan jirkeeda iyadoo aan waxba looga ogolaanayn taasoo sharafkeedii iyo milgihii ay lahayd halkaasi ku baaba'da una horseeda sharaf xumo magac xumo ayada iyo waalid iyo walaal waxay lahaydba u horseeda. waxa aan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeenna waxa aan jeclaan lahaa inaan halkan fariin ugu diro gabdhaha Soomaaliyeed sharafta leh. walaalayaalo waxaad tihiin hooyooyinkeenna walaalaheenna eedooyinkeenna habaryaryasheenna waxa aad mudan tihiin sharaf iyo karaamo. ilaaliya sharaftiinna ka digtoonaada iska ilaaliya
fiiriya ka feejignaada cidda aad saaxiib la noqonaysaan sharafkiinu waa sharafkeenna waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi jannada gala ma fahantiin dadkiina ana dambiga dhan iga dhaqday dambi dhan ma lihi jannada gala waa oga habo cause waxa ihina ig sheegaysan sharmuuto waay dhilla waay